السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كيغا مركلا سو دوادا أدي هذا ومحسنتين وأدي كم هاد علنيا داوشada dib ayaan ugu soo laabtay Indianapolis Indiana asxaabtii ugu soo dhaweysay Minneapolis aadi aad ayaad u mahadsantihiin waa axad 23 bisha shanaad sanadka 2021 warbixino badan ayaan idin hayaa maanta laakiin marka hore hadii aan ku bilaabo waxa soo kordhaya gobolada dalka Mareykanka ee baqtiya nasiib lacag aad u fara badan ku bixinaya qofkii qaata talaalka cudurka coronavirus waxaan ogeyn gobolka Ohio gudoomiyaha gobolkaasi Mike DeWine in uu 2 toddobaad ka hor ku dhawaaqay ilaa iyo 1 milyan oo la siinayo 5 qof muddo 5 toddobaad ah oo isku xigta oo bilaabanaysa 26 oo ku beegan maalinta Arbacada hadda waxa ku soo beeray gobollo ay kamid yihiin New York iyo gobolka Maryland gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa waxa uu ku dhawaaqay sidoo kale lacag la siinayo qof kasta oo talaalka cudurka coronavirus ka qaata oo gobolka New York degan gobolka New York waxa uu kamid ahaa gobolada sida ba'an uu saameeyay cudurka coronavirus ka isla markaana hadda dib loo furayo gobolka New York waxa la filayaa oo duqa magaalada New York Bill de Blasio uu ku dhawaaqay in kowda bisha July 100% si buuxda loo furi doono gobolka New York gaar ahaan magaalada New York oo lagu naanayso magaalada aan laga seexanba isla markaana xaawanaysay sanad iyo barkii la soo dhaafay marka gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo waxa uu ku dhawaaqay baqtiya nasiib oo ka bilaabanaya 5 milyan oo dollar isla markaana $20 ay u hooseyso qof kasta oo da'diisu 18 ay ka weyn tahay oo talaalka cudurka coronavirus ka qaata ayaa heli doona isniinta ilaa iyo jimcaha ayuuna soconayaa lotterigaas ama baqtiyo nasiibkaasi qofku uu ku guuleysanayo hadii uu qaato talaalka cudurka coronavirus waxa uu baqtiyo nasiibkaasi ka heli karaa qofka New York degan 10 goobood oo kamid ah goobaha waaweyn oo dawladdu maamusho oo laga qaadanayo talaalka cudurka coronavirus waxa uu bilaabanayaa 24 bisha oo ku beegan maalinta bariyaha oo isniina waxa uu socon doonaa ilaa 28 bishan aynu ku jirno waxa loogu magac daray fax and scratch istalaal isla markaana baqtiyo nasiibkaasi xoqo oo nasiibkaada eeg hadii aad ku guuleysato lacagtaasi waxay u dhaxaysaa ilaa iyo 13 abaalmarin oo kala duwan waaye 5 milyan ay ka bilaabanaysaa $20 ayaana u hooseysa marka waxaan filayaa hadii baqtiyo nasiibkaadan lacag ku iibsanaynin oo aadan gadanaynin in aysan noqonaynin xaraan dad fara badan ayaa waxay leeyihiin baqtiyo nasiibku soo xaraan ma ahan wadaadada ayaa arintaasi aan ka sugaynaa commentiyada inoogu soo qoraan wadaad fara badan ayaa nagu tixanuun filaya in ay daawanayaan marka New York waxay hadda kamid tahay gobolada doonaya dadkooda inay ku dhiirigeliyaan in talaalka ay qaataan si cudurka coronavirus looga badbaado gobolka Maryland sidoo kale gudoomiyaha gobolkaasi Larry Hogan ayaa isaguna waxa uu talaaladii ku dhawaaqay in $40,000 la siin doono dadka degan gobolka Maryland hadii ay qaataan talaalka cudurka coronavirus ilaa iyo 2 milyan oo baqtiyo nasiib ah ayuu ku dhawaaqay baqtiyo nasiibkaasi waxa uu sidoo kale gobolka Maryland uu ka bilaabanayaa 25 bishan oo ku beegan maalinta talaadada ee soo socota ilaa iyo 3 July ayuu socon doonaa dadka ku guuleystayna waxa lagu dhawaaqi doonaa 4 bisha July oo maalinta xurriyadda wadankan loo dabaaldegaya waxa xaq u leh qof kasta oo da'diisu ay ka weyn tahay 18 isla markaana gobolka Maryland degan caruurtu kuma jiraan marka waxa lagu doonayaa dadka in lagu dhiirigeliyo gobolka Maryland sidoo kale 2 milyan ayuu ku dhawaaqay marka hadda gobolada ugu waaweyn ee abaalmarina waaweyn ee dhinaca baqtiyo nasiibka ku dhawaaqay waxa kamid ah Ohio, New York iyo waliba Maryland iyadoo gobolada qaarkood ay jiraan abaalmarino kale inay dadka qofkii talaalka qaatay ay siinayaan laakiin abaalmarinadaasi aysan ahayn kuwa badan haddaba talaalka cudurka coronavirus inta badan wadanka si weyn ayaa looga qatay gobolada qaarkood hadda waxa ay dadkooda talaaleen 70% dadka goboladaasi degan ayaa la talaalay oo herd immunity marka hadda goboladaasi waxa ay aad uga wanaagsan yihiin gobolada kale maadaama ay aad u yartahay qatarta uu goboladaasi u keeni karo cudurka coronavirus xitaa hadii uu markale soo laba kaclayo goboladaasi waa 8 gobol oo 70% dadkooda talaalay waxayna kala yihiin New Jersey, Massachusetts, Vermont, Hawaii, New Hampshire, Maine, Connecticut iyo waliba California sideedaasi gobol 70% dadkooda waa ay talaaleen hadda gobolka California waxa 100% si buuxda loo furi doonaa 15 bisha June ee soo socota hadda cudurka coronavirus meeshii ugu hooseysay dalka Mareykanka ayuu marayaa muddo 11 bilood waxa hadda kiisasku maalintii ay cagacageynayaan ilaa iyo 30 waxa la leeyahay 18 bishii June ee sanadkii 2020 11 bilood waa markii ugu horeysay oo kiisaska cudurka coronavirus dalka Mareykanka ay 30,000 maalintii
iyadoo hadda ay muuqanayso in 60% dadka qaangaarka ee ku dhaqan dalka Mareykanka ay qaateen hal kuuro oo ka mid ah talaalka cudurka coronavirus marka waxaa muuqanaysa in 70% uu madaxweynaha hiigsigiisa ahayd in 4 bisha July uu wadanku gaaro si wadanku uu uga badqabo cudurka coronavirus hadda in qarka loo saaran yahay maadaama hadda 60% dadka qaangaarka ee dalka Mareykanka ku dhaqan si buuxda looga talaalay cudurka coronavirus sidoo kalena gobolada hadda joojinaya unemployment-ga ayaa sidoo kale gobollo kale ay ku soo darso hadda 22 gobol oo ka mid ah 27 gobol ee Republikaanka oo gudoomiyashoodu ay Republican yihiin ayaa hadda waxay ku dhawaaqeen inay joojinayaan 300 ee lacagta unemployment-ga iyo guud ahaan lacagaha kale oo goboladaasi ay bixiyaan oo dadka shaqo la'aanta la siiyo hadda gobollo ay ka mid yihiin Florida iyo Nebraska ayaa waxay sheegeen inay ka fikirayaan joojinta lacagta unemployment-ga laakiin gobolka Massachusetts oo isagu Republican gudoomiyaha gobolkaasi Charlie Baker waxa uu sheegay in uusan joojin doonin lacagta unemployment-ga gobolada kale ee Maryland iyo Vermont iyaguna waa ay ka aamuseen oo ma aysan ku dhawaaqin inay joojinayaan lacagta unemployment-ga ee dadka goboladaasi la laakiin gobolka Connecticut oo gobol dimuqraadi ayaa wuxuu noqonayaa gobolkii ugu horeeyay ee dimuqraadi oo sheegay inuu joojinayo lacagta unemployment gudoomiyaha gobolka Connecticut Ned Lamont ayaa waxa uu sheegay in ka hor 30 bishan qofkii shaqada ku laabta isla markaana muddo 8 toddobaad oo isku xiga shaqeeya in gobolka Connecticut uu siin doono lacag $1,000 marka waxa uu ka mid yahay hadda gobolkii ugu horeeyay ee dimuqraadi oo yiraahdo qofkii 30 bishan ka hor shaqada ku laabta lacag $1,000 oo bonus ayaa siin doona marka waxa uu gobolkaasi doonayaa in dadka shaqada dib loogu celiyo sidoo kalena waaxda immigration-ka ee dalka Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqday barnaamij cusub oo lagu caawinayo dadka loo diyaarinayo dhalashada dalka Mareykanka inay qaataan ama baasaboorka Mareykanka ay qaataan qofkii si sharciya wadankan ku degan oo green card haysta waxay waaxda USCIS ay ku dhawaaqday barnaamij loogu magac daray Citizenship and Integration Grant Program barnaamijkaasi waxa uu yahay in dadka green cardka ama deganaanshaha rasmiga ah ee wadankan Mareykanka haysta loo diyaariyo sidii ay baasaboorka Mareykanka ay ku qaadan lahaayeen ama dhalashada Mareykanka sidee loogu diyaarinaya dadkaasi waxaa laga saacidayaa inay luqadda Englishka bartaan taariikhda wadanka ay bartaan isla markaana si dadkaasi marka ay sharciga qaataan ama baasaboorka ay qaataan ay dadka kale ee wadanka ku dhaqan ay isdhexgal u sameeyaan waaxda USCIS waxay sheegtay in barnaamijkan $10 milyan ay ku bixin doonto isla markaana loo qaybin doono community-ga ama bulshooyinka ku dhaqan guud ahaan dalka Mareykanka Soomaalidu qayb ayay ka tahay haddii ay jiraan ururo gobolada Soomaalidu ay ku badan tahay sida Ohio iyo Minnesota ka dhisan isla markaana caawiya dadka Soomaalida ah oo ka caawiya in ay qaataan baasaboorka ama dhalashada dalka Mareykanka oo dadkaasi la baro taariikhda wadanka iyo waliba luqadda Englishka lacagtan waa ay ka faa'iideysan karaan lacagtan waxaa ku dhawaaqday waaxda USCIS oo immigration-ka u qaabilsan dowladda Mareykanka wasiirka amniga gudaha Alejandro Mayorkas ayaa waxa uu sheegay in lacagtan ay muhiim u tahay dadka soo galootiga ah ee wadanka isla markaana ay ka caawinayso in ay raadiyaan amaba ay helaan baasaboorka ama dhalashada dalka Mareykanka iyadoo lacagtana loo marsiin doono ururada iyagu taageera ama dadka ka saacida in ay luqadda Englishka iyo taariikhda wadanka ay bartaan isla markaana marka imtixaanka ay dhalashada wadanka ama baasaboorka ay u galaan si ay ugu guuleystaan waxaana sidoo kale haweeney u hadashay waaxda USCIS ay sheegtay in ay kala xulan doonaan ururadan soo dalbanaya lacagtan isla markaana sidoo kale ay kula xisaabtami doonaan lacagtan halka ay ku bixiyeen waxaa lacagtan la siin doonaa ilaa iyo 33 urur oo kala duwan oo guud ahaan dalka Mareykanka ka dhisan waxaana midkiiba la siin doonaa lacagaha $250,000 oo muddo 2 sano ah la doonayo in dadka loogu diyaariyo in ay qaataan dhalashada dalka Mareykanka iyadoo laga saacidayo luqadda iyo sidoo kale taariikhda wadanka in ay dadku bartaan waxaana application-ka ama codsiga lagu soo dalbanayo lacagtan 10 milyan ah oo ururadan 33 ay ku soo dalbanayaan oo midkiiba uu helayo $250,000 ay furmaysaa 16 bisha July ee soo socda iyadoo sidoo kalena hay'adda USCIS ay sheegtay in ururada ku guuleysta marka ay codsiyadooda soo dirsadaan lagu dhawaaqi doono bisha September ee sanadkan aan ku jirno 2021 waxaana lacagtan ansixiyay Congress-ka dalka Mareykanka ilaa iyo sanadkii 2009 waxa hay'adda USCIS ay sheegtay in barnaamijkan loogu magac daray Citizenship and Integration Grant Program in ay ka faa'iideysteen
in ka badan ilaa iyo 473 urur waxaana ku baxday lacag dhan ilaa iyo 102 milyan iyadoo lagu caawiyay dad dhan ilaa iyo 279 kun oo ah dadka green cardka haysta isla markaana loo diyaarinayay dhalashada ama baasaboorka dalka Mareykanka inay qaataan waxaana sidoo kale dadkaasi ay ku dhaqnaayeen 39 gobol oo ka mid ah gobolada dalka Mareykanka iyo sidoo kalena degmada la yiraahdo District of Columbia marka dadkaasi ayaa guud ahaan ka faa'iideystay marka waxaan leeyahay haddii ay jiraan ururo Soomaali ah oo gobolada Ohio ama Minnesota sidoo kale ka jira waa ay ka faa'iideysan karaan applicationkaasi waa ay dirsan karaan sidoo kale waxa ay geli karaan applicationkan marka ay raadinayaan www.granty.gov ay geli karaan halkaasi ayna sidoo kale ay ka buuxsan karaan waxaana codsiyadu ay furmayaan 16 bisha July halkaasi oo sidoo kale ay ururadaasi ka faa'iideysan doonaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixinadii aan maanta idiin soo ururiyay intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo